jirin waxyaabaha ugu daran waxa kamida حب الدنيا dhibaatooyinka ay keento waxa kamida سوء الخاتمة خاتمة حن إن الله سبحانه وتعالى قفك وختم والعياذ بالله انت بدداليسا أو دبتونيسا لكن قفك هدوية قف الدنيا هر مرين جري آخر انت لجارن وحكو أركيا في الدنيا انتو سنبك دقاق خاتمة حن والعياذ بالله ولذلك وحي تلمام جرين أما أو تلمام ابن القيم الجوزية في كتاب الله وحيري نمبال كرسين وير كلمة لا إله إلا الله والله لقنا لا إله إلا الله يسقى حراره ودمانه لا إله إلا الله كلمة دي وأقبل لا إله إلا الله كلمة دي كدي مركي ديب الله أقول الله في تاريخه كان يتعامل بالربا الربا دوكم معاملون جري وكش قنجر بالربا ولذلك مركي كلمة ده بالله الشيء زيد 3 زيد 8 زيد 6 أنبولية سدح كدر تضرب كدر سديد كدر لبا كدر وحساب طبعا إنك كان وحكي الأمم وقته ولذلك قفك السوء إنك نجمده قرصة دم الذنوب تكمده waxa ku bixiyana ay taa xub dunya ogow dambiga isaga khaatim xumu soo jiida wal iyad billah laga yaaba dambiga isaga inuu nasajiyo kelimada la ilaha illa wal iyad billah baantan tirada badan xadka aan lahayn waxay u badantaa adduunyada ay noo geysay waxay u badantaa inay khaatimada markaa nasajiso waa la gartay inaad hal mar been aad sheegto waa la gartay laga yaaba inaad kutubta meelaha rogrogto kutub al hiyal oo dhan aad tiri kullu maqsuudin mahmuudin jaazi fihi alkadhib meel baad kala soo dhacday لا وحبات ركتو ظروف بعد كانت تري مقعيدا ترى بدن انتي اسعدان او باسبوردا ترى بدن انتي اسعدان او سيبريشن كان ان ودا غلينا او لبدا روح اسقبتو كلا دحد انتي اسعدان او ددك نوعا ما انت انتي اسعدان وحيامرن انتي اسعدان مركلي waa gartayo noocan ma qofka kan waxa laga yaabaa jaahil baan aha ma fahamsanin baad ku heysay waxa loo sii socdo intee u sii socdaan waxa laga yaabaa shaygan hadii aan sii wadno inay suul khaatim marka uu keeno wuxuu leeyahay وربما هذا الكدغيسو الحافظ الإشبيلي غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة وحي بدنت قفك نوع ذنبي كميده انه آد وغالب نقضه اما معصيه وجانب من الاعراض كدبوا ليها اخر كمركه لا غارو وحي بدنت موت كمركو ايمانيو هذه الخطيئة وهذه المعصية إن تمد كلي سجينيس خاتمديسا انت مركان فهمنا كدب وحنو باهنا اذا ما العلاج او غنانت كنقونيو دوادا وان ودا باهنا هاي مر هدي لي خطورده اي لهدا كو ادويدا لا ku dul tumanaya mar hadii la amalka ay sameeyno sidaan waa ka kac mar hadii la khaatimadiina mawdki marka mawdka uu yimaado lagu sajinay mar hadii la khasaaratu dunya wal aakhir mar hadii wax kasta la sheego xubbu dunya ay tahay mal cilaajku wuxuu noqonayaa ama dawada waxay noqonaysaa waxa laga badbaadi karaa qofka muuminka horta inuu cilmi raasikh u yeesho xaqiiqadeeda waxa ay tahay aanu ku kasoomin in iyadii la liido waxba aan laga soo qaadin wuxuu leeyahay abu isxaaq fi masaa'ilihi hada lees waxa kamid xasan al-basri inuu yiri أهين الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون عندما تهان الدنيا ذا الليذة ويليد ميسا أو وحي نقول يسا واحد دولك كل جن مركل الليذو مركل لقاد قاض الله بومبوني ومن معنى يلا نيسا بيري مركز سحر أبو إسحاق باوحير ما أهون الدنيا على الله الركال بعد وحيا إنه قفك كوفا كرو إنه وحن آني راجين واحتاجي إنه يهين يعني وأدرك أشخاص كهرفا لذا ninka maanta aad aragtay bari kuwa muuqanay adduunyo tagaysa way yaani amalki shalay aad qaban jirtay ma raagayo waxa soconaya un kaliya alladhi qaddamtahu lillahi jalla wa ala ilahi isaga ku tilmaamay inay tahay sari'atu adh-dhubul wa shikatu at-taqallus markii inay baaba'ayso kamathali ghaythin ajaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra markii iyada cawlanto isbadasho jaala noqoto oo jajabtay noqonaysa watan Allah subhanahu wa ta'ala isaga ka allam taghni bil ams mar hadii sida ay tahay وانا ايدا درتيد ان مسلم ولالك ادن اوغوين وايدا درتيد وا اديغا iyo islaantaada ina la kala qabanin oo inta shilinka u dirtay anna intaan u diray waa inaan noqon iyada darteed waa in aanay khayraadka aan wadna aanay u burburin iyada darteed waa in wax alla wixii mashaariic khayriya aan wadno aanay u burburin iyada darteed maxay la mar waxa kan waa wax zuulaya way wax joogay marka ma amalka ku anfacayna bi idin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi qaddamtahu lillahi jalla wa ala soo shala ma ahayn mu'tamar walbaba ilaa uu ka 18 baa la maraya 18 sano idin hor fadhiyay rahmatullah alayhi shaykh Maxamed Rashaad oo kelmad meeshan uu ka lahaa maantana waa tan mu'tamarka maasha aanu fadhin waxay ahayd maaha wuxuu la dhintay da ma ahayn laakiin waxa ahayd umrigiisa marka la gaaray waxa kala dawaleek laga yaabo sanadka dambe inaan meeshan ay ku soo wada noqon iyadoo waxa marka farkuturis ay yihiin wax gaaban ay yihiin
waxay u badan tahay marka ama waxa khayrku uu ku jira ama arrinku sida uu yahaba in aynan iyada aynan isisiin iyada darteed aan la isku goynin cilaajku wuxuu noqonayaa biidni illahi subxaana wa tacaala macna sidaas oo kale wuxuu leeyahay uu ku mithaaliyey ibnulqayim sida nin raymiiga oo u martiyey dad markay marti sooreen oo cunto siiyeen oo raashin siiyeen oo biyo siiyeen oo yidhi bar geedkaa hoos harso geedka markuu hoos harsaday oo teendha ay u dhigeen teendhada marka ay ka dhufsadeen isagoo hurda kadibna uu soo toosay isagoo meel qaraxa markaa joogay kadibna marka calaa lisaani xaalihi tixgabaybu ku dhuftay wuxuu yidhi wa in imru'un dunyaahu akbaru hamihi lamustamsikun minha bixabli guruuri haddiiba adduunyada aad akbaru hamik aad ka dhigatay waxa ugu weyn aad ka fakaraysid waxaad ku dhegan tahay xarig meel khaldan baad ku dhegan tahay ciiddaad gacanta ku haysaa wey dawada kale waxay noqonaysaa lagu daweyn kara biidni illahi subxaana wa tacaala in yar in lagu qanco in yar in lagu qanco in yar marka lagu qanco dawa imanaysa biidni illahi subxaana wa tacaala inaan isbarno afar kuwii markayna soo gashay inaan ugu filantaha oo shil xaaraama aynaan raadin maxaa yeelay waan soo noolaan jirnay waxaa lagu soo noolaa oo la soo deganaa cariish baa la deganaa matarku baa la deganaa guri jiingadaa la deganaa waxaa la deganaa qaar baa mudul deganaa kuwa ma aragtay aqal soomaali deganaa nin wal meel bay deganaa يعني انت ونغو في الله لكن ماشي مركو قفك او يمد اسغو لبا قل سدخ قل دغن بو وخو ليه غوريغا ير شلي waa lugeyn jirtay ilaa iyo waxa lugeyn jirtay meel dhow ilaa sharka qaajar ka soo gaarto maanta adoo isugu ka toosan tahay ba waxa leedahay adduunyo iga maqan shal adoo waxba aadan heli karin oo aad ku nooleed uu kaliya ninka biibitada ka soo har fariisashaha uu ku shubo ayo maanta ijaabkaaga uu buuxo akaankaaga uu buuxo viisaaha uu buuxo ayaa wali adduunyada si raadinaysa waxaad fahmaysaa marka كلما قفك حديث رسولك صلى الله عليه وسلم أن كسو ختم الدوان وحوية بإذن الله كلما قفك ودرهم وزياسة زاد هون وتليل أرنك لو حوية تدبر إن أوقفك وكو مشغوله وحل قمك عابو لذة الله جل وعلا يعني لذة محبة الله جل وعلا إن أوقفك ودن صده عبادة معناها إلا ذا محايل عبادة وحل يقوتا قلبك وجوارح ذو يقوتا جوارح ذا وحبناها بني آدم كا ولذلك ننكي لا أركي إساق أو تكنية كدي من دقاجينا جرك مالها تابانة مرنا مركا بدنا ماذا حرانا مركا الأركي جلوسي حرانا مركا الأركي وتلي أن من هذا لو خشعت جوارحه لخشع قلبه حبنيه أما لو خشع قلبه لخشع جوارحه بالعكس هدي قلبي يسوء خشوعي لها حبنيه سنة خشوعي لها إذا أركا مركا وحموجينا مسألة حب الدنيا ولا صافر رسالة ماشي marka نهاية الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى وحن كسو جبجبين لها وان كتجا قضبضها صدام وحن كسو جبجبين لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تلمام مظاهر تمركو كهل ومفاسد أنت أن لقاها اللي انكهر بوحي رسولك صلى الله عليه وسلم أو تلمامي إن خير رب وكجره قفك إنه وهرمر يا آخر ذي سأكدق بريورتي أوسيو شر ربنا وحي كجرتا إنه مركا وهرمر يو الدنيا وانا دبك إلا هذا ولذلك رسولك صلى الله عليه وسلم حديث عكيري لو كان لابن آدم واديان لبا وادي هدو هي صلها او دهب مركا كجرب رسولك صلى الله عليه وسلم وحو رجين لها ما وجعل لها مسدحات انه هلو مسدحات بو رادين لها مركا رسولك صلى الله عليه وسلم لا يملا جوف ابن آدم الا التراب قفك بن آدم كا لابتي سوحا بوحيا كليه عيد مويان وحكلا مركا بوحيا مركا ملها احاديث صدام waxay muujinayaan waxa qanaacada qofka ma qancaya illa aniga adiga ilka la naga dhigan mooyaan inta ka horeysa Soomaha inta raadin karna raadinina bil ismi hal lagu raadiyo magac qoray hal lagu raadiyo wax kale hal lagu raadiyo suuma marka loo raadiyo warka rasuulka sallallahu alayhi wasallam laba ruuxna laba shay wixii rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka daada ah يعني قفك وكو جواب رسولك صلى الله عليه وسلم هرم بكون نقضى حب الدنيا حديث في صحيح مسلم مركة المامة وإلى هنا وبالله التوفيق جزا الله خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة المفيدة لشيخنا الفاضل دكتور علي محمد صالح إلهي كاوى المريو محاضرة قيم كاو شيخ النصو جديي وحقيقي كهل ليسي أرين إحساسي أو حب الدنيا
وعن رجعنا إلهي ونغدوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقتك وآد علينا وقوة أي هذا صدح سؤال لي كاني مركا إن شاء الله سؤاله وحنفله يا هذا حل قودي يرى دبي ودعين ولكن محاضرات كحكته محاضرين كحكة أيان إن شاء الله قالين دونا